ayaa sheegay in xubno ka tirsanay ay magaalada Addis Ababa ay kula kulmeen madaxweynaha cusub ee maamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Ururka ONLF ayaa sheegay in shalay ay si buuxda ay ula shaqaynayaan madaxweynaha cusub, waxayse ka digeen faragelin dowladda dhexe ee Ethiopia ay ku samayso arrimaha gobolka. Haruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge oo ku sugan magaalada Addis Ababa. mufkay waxaan u aragnaa nin dhalinyaro oo hay'ado caalami ah ka soo shaqeeyay oo aqoon-yahana oo wadaniyad aaminsan oo waxyaabo badan oo muhiim ah oo laf ka midaysan yihiin. maxaa ka mid ah waxyaabaad ka midaysan tihiin? midnimada dadka Soomaaliyeed, midnimada dhulkooda, maslaxadooda, xuquuqda muxuu ahaayay dadka Soomaaliyeed iyo danahooda, taariikhda dadka Soomaaliyeed, waxyaabo badan baan ka midaysanna. weli kulan ma idin dhex maray? maanta kulan baan dhex maray haa. bal ii faahfaahi kulankaas. kulan qiimo badan baa wafdiga jabhadda iyo madaxweyne ku-xigeenka ama madaxweynaha hadda gobolka Mustafa Cumar dhex maray. kulankaana si aad u qiimo badan buu u dhacay, isafgarad weynna wuu dhex maray. rajo badanna waxaan ka qabnaa hadafkii jabhadda ahaa in dadka Soomaaliyeed la mideeyo, jabhad iyo shacab iyo maamul midaysan in la helo oo Soomaaliyeed meel weyn baa la isla gaadhay. yaa joogay kulanka labada dhinac, dhinaciina iyo dhinacooda? waxaa joogay dhanka maamulka waxaa joogay Mustafa Cumar, dhanka jabhaddana waxaa joogay saddex mas'uul oo wafdiga jabhadda ka mid ah oo guddoomiyaha wafdiga Xuseen Maxamed Nuur, xubin golo dhexe iyo sarkaal ka mid ah hoggaanka arrimaha abaabulka iyo jaariyadaha ee jabhadda wadani xoreynta Ogaadeniya. si aad u qoto dheer waa la isu fahmay. waa gartay. bal waxaad wax yar sharaxdaa sidii horey loogu socon lahaa iyo waxa aad ka wada hadasheen, hadday noqon lahayd nabadaynta dhulka, hadday noqon lahayd isu keenista dadka, hadday noqon lahayd dee sidii dadka loogu talin lahaa oo maaragtay loo hogaamin lahaa. waxaan isku afgarannay kow in dadka Soomaaliyeed la mideeyo oo qorshaha jabhadda ahaa. waxaan isku afgarannay in maamulka iyo shacabku gacmaha isqabsadaan, shacabka iyo jabhaddu gacmaha isqabsadaan, maamulka iyo jabhaddu gacmaha isqabsadaan, inaan nabad ku xallino khilaafaadka dadka Soomaalida iyo Oromada dhex yaalla, in saddexdaa dhardhaar oo midaysan shacabka, jabhadda iyo maamulka oo midaysan ay xuquuqda dadka Soomaaliyeed si wada jir ah u raadiyaan, u difaacaan, u midaysnaadaan oo looga wada tashado, loo wada ilaaliyo, la isku tiirsanaado. Soomaali dambe oo aflaaqa leh inaan la helin, faragelin dambe ayna dhicin, kala qaybsanaan dambe ayna dhicin, takoorid iyo xadgudub uusan dhicin, wada jir iyo midnimo iyo Soomaalinimo iyo muxuu ahaayey isku duubni iyo sinaan inay dadka Soomaaliyeed u timaado. si weyn baa la isugu afgartay. idinka iyo dowladda federaalka arrimihiinii ma dhammaadeen? wada hadal ma gasheen? xaggay dhinacaas wax marayaan? annagii iyo dowladda waxaa socday wada hadallo goboldhiga oo gobol xaar u ah wada hadal weyn inuu dhaco. inaan wafdiga wuxuu yimid inaan kalsooni abuuro, inaan wada hadallo bilow abuuro, inaan gobolka uusan qalaaqal ama qalalaase ka dhicin, gacan ka hadal keena, in xaaladda muxuu ahaayey la kontaroolo oo ayna gacanta ka bixin. kadibna wada hadal qiimo badan oo jabhadda iyo dhex mara dowladda dhexe u dhaco. maamulka muxuu ahaayey Soomaalida Ogaadeniya cusub iyo jabhaddana arrinta wada hadalka way iskaga afgarteen. dowladda dhexena wixii isbuuc ka dambeeya inay u diyaar garowdaan ku wadnaa, inay isbuuc wixii ka dambeeya ay bilaabayaan ayuu goboldhigu heerku gaaray noo sheegaya hadda. marka maxaa saldhig u noqon doona wada hadalaas? ma in maamulkan jira Soomaalida la dhiso, la adkeeyo, la taageero, mise qadiyad kale ayaad kala hadlaysaan? maamulka arrimihiisa ay jabhaddu ay ka hadlayso, maamulka inuu xor u ahaado, hawlihiisa oo madax bannaanaado, aan la faragelinin. laakiin jabhadda faylkeeda wada hadalku waa kii awalba ay qabtay oo ay katalintu ka mid tahay, oo qodobo badan oo siyaasiga iyo amniga iyo muxuu ahay xuquuqda dadka saameynaya oo diyaarsan baa jira. muddo dheer buu wada hadalka noo soo socday dowladda Ethiopia, marar badan baa la isku mari waayey. hadda waxaan rajo qabnaa inay ay wax dhaqaaqaan. marka wada hadalka jabhaddu halkii awal daaraa buu daaran yahay.
bal waxaan rabay inaan ku siiyo su-aasha ugu dambaysa oo ah ururka ONLF oo 20 sano ka badan la dagaalamayay Ethiopia maanta aad wafdi ka tirsan ONLF ku sugan yahay magaalada Addis Ababa isbedel ka dhacay gobolkii Soomaalida bal inaad qiimeyso adoo cadaan iyo maanta Addis Ababa joog inaad qiimeyso xaaladii isbedelada dhacay waxaad ku qiimeyn lahayd inaan fursadda ku sii yarabay aad u mahadsantahay bismillah waxaan u arkaa in waa markii koobaad ay Ethiopia hoggaankeeda qabto dad ka duwan dadkii hore taqliid ahaan ama taariikh ahaan qaban jiray dad aan wax isu nahay oo ku shirtiga baa qabtay waxaan isleenahay isbedelkan ka dhacay maamulka Ethiopia tallaabooyinka uu qaaday oo qodobo badan oo positive ama togan ay ku jiraan in la hubiyo wada hadalkii Ethiopia iyo Soomaalida dhex socon jiray hore u socon waayay jiray inuu dhaqaaqayo dadka Soomaaliyeed maanta inay fursad u haystaan inay midoobaan iyaga jabhadda iyo maamulka iyo shacabka gacmaha haystaan xuquuqda si wada jir u raadin karaan waxaan isleenahay isfaham daradii dhex mari jirtay iyo wada hadaladii horsocod kala ee talisiyadii hore Ethiopia iyo hababkii ay ula dhaqmi jireen dadka Soomaalida inay wax iska bedelaan marka waxaan isleenahay wada hadalka inay dhaqaaqaan waftiga jabhaduna mar dhow booqasho ku mari doona dalka inta aan booqashada ku jirna wada hadalkii weynaaba bilaabmahaya oo wufuud kale oo jabhadda iyo dawladda dhexe dhex mari doona sidoo qorsho yahay marka waxaan isleeyahay fursad la hubin karo fursad waxay u tahay dadka Soomaaliyeed inay midoobaan maamulkooda iyo shacabkooda iyo jabhadooda oo gacmaha haysta inay maanta wada hadalka ONLF iyo dawladda dhexe Ethiopia bilaabmahayo wajigan cusub ee Ethiopia gashay oo ay ku celcelinayso inay dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacbiga tixgelinayso inay fursad tahay la hubin karo dhanka dadka Soomaalida in la mideeyo oo xoogooda la isu geeyo danahooda la difaaco waa fursad furan oo bilaabatay dhanka inay wada hadal wax tara oo midho ka soo baxa dhexmara dawladda Ethiopia labada isbuuc ay ugu soo socdo ayay kala cadaanaysaa rajana waan ka qabnaa waftigeena markuu qiimeeyay arrintaasi muxuu ahay ay bilaabmayso maamulka gobolka iyo shacbi weynahana waan ka midaysanahay marka war jira waxa ka hor imanaya maalin dhow jawxa waxay saxaafadda iyo idinka idinla wadaagi doontaa wada hadaladii masiiriga ahaa iyo meesha ay marayaan afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo isaga ku sugan magaalada Addis Ababa khadka telefoonka ugu waramay Haruun Macruuf